تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي سوري هذا ولا شيء واي مال بدون كجكتين حرجنا وقتنا سنقول هاي سوري هذا فضلا دايق وعسب تحكي عصني سبسكرايب كلايك شارك نوسي سماية إن شاء الله دور بينما أوكي إن فيديو كهري هدات أركتي وحن إذا هاي وان بحي لكن فيديو كجرب كسبوا ديران لها إن وحن جعلنا نوكل قيبيو إن رمضان كعاونيا إن فيديو قانيتنا سناقان يركان سميني وحويان إن overnight oatmeal سامو سمينيو إن وين لو ذاك before لكنse waxaan rabaa inaan tusiyo steps kan qaadanayo waxaan tusinayaa okay so Walmart-ka aad iyo aad tukaan ka fiirsada okay Walmart waxaan rabaa inaan tusiyo mushaarada noocyada ku timaado iyo say tahay okay aniga waxaan soo gataa kan oo dhaqsada karsamaayo quicker-kana soo gataa from Costco-ga asagoo weyn ayay waxay gadaan 1 minute kana half kan ah umana box ku jiro fara badan so halkaas ka soo gataa but maadaama aan idin tusinay kala nooca Walmart-ga kuwiisan fiirinay xoogaa yar xumalaysaa prices-ka kor u kaceen waaga hore raqiis ahaan jireen so saa u jeedaan waxaan tusinayaa quick oat and oatmeal ka 3 minutes ka iyo 2 minutes ka 1 minute and a half ka karsamayo kulligood they're good you know waxa ugu fiican kan oo ka samaysan brownka but mushaari weeyaan runtada idin sheego bar aniga waxaan rabaa mushaari aan ma aragtay cuni karo dhaqso karsamayso waxaan rabaa mushaari ma aragtay markay snack laga sameynayno la cuni karo sida iyadoo ah so saan hore idinkula soo wadaagay so Walmart-ga arkay Walmart-ga brandkiisa waa kan brandkiisa waa waxa oo jeedaa magaciisa steel cut oats waa kan ugu waqti dheer okay kan wuxuu baahan yahay inaad karkarisid waqti badan u baahan yahay marka kiisa kale taan fiirinayna kanna waxa weeyaan soo jeedaan quick oat dhaqso karsamaya so kan kale steel cut-ka waa oatmeal-kii oo caadi ah kan waxa waa isaga la sii burburiyay okay kan waa ku sii daran 1 minute waay okay I love this one because dhaqso karsamaya kan kalaba 1 minute and a half weeyaan so kan dhexaadkaas ka qaadanaya because mushaari ahaan inaan kusamaad rabaa inaan waxa waaye snackada aan ku tirsano waa rabaa so waa tijaabinaya weligay Walmart-ga brandkiisa maana gadanin usually quick oatkaasaan gataa weliba kan Costco aan kasoo gataa oo boxka weyn ku jiro oo aan karsanay like aan diyaarka ahayn mid waxaa jiro package yarar ku jiro oo diyaar ah flavor waxaas inta lagu sameeyay kaas maaha because kaas waxa waaye individually maaragtay caruurta inay sameystaan iyaga wax yariso oo mealka ah ayaa loogu talagalay but aniga waxaan jecelnahay mushaarida oo caadiga ah soo kan weynkaas oo gataa kaasa marka wax badan yaalo so ujeeda different waxaan tusinay xataa 100% whole grain oats weeyaan kan kale raw oats leeyahay maxay kala duwan yihiin mushaari le waaye so mid waa sii jabsan yahay oo waxa waaye flavorkiisa waa la sii bedel xoogaa kanna waxa waaye de originalkiisii saasa jeclaa inay tahay yeah so soo gatay waxaan tijaabinayaa 1 minute kana half-ka kan ah ayaan tijaabinayaa aan waa idin wadaagayaa waan tusinayaa suu yahay okay guriga waa keensaday kana soo qaatay okay kan waa daqiiqadii iyo nuskii kii ahaa waaye karsigiisa okay mushaarida rooga ah oo la cunayo runtii waxyaalo badan oo saas oo kale taa waa cunaa like kama warqabno samaha mushaarida marka waxa la yiri it doesn't affect you anything but haddii ma aragtay aad wiswis kaaga jiro ovenka iska geli you know kari okay aniga hadda waxaan u sameynayaa horena waa idin kula wadaagay peanut butter isticmaalay insha Allah peanut butter ma isticmaali doon video dhamaadkiisa si fiican idinku sharaxaya ka marka waxaan soo gatay dhalooyinkan waa aragteen aan horay u isticmaalay waxyaalo kale ku isticmaalay digirtii waxaas ku shubanay ba digirtii waxa way badan yihiin so waan ka bedelay marka hadda sabiibka maadaama bacyashan yarka ku yimaadaan Walmart ka soo gatay bacyashan yarka sabiibka oo bacda lagu haynayo
waagi hore ma dhibi jirin but hadda wuu idhibaa maxaa yeele waan iloobaa okay marka qaarkood ma jeclin inaan wixii maaragtay wuxuu ku jira kasoo saaro laakiin waxaan ogaaday markay bacyaasha ku jiraan kuwii cusbaa aad soo gadatay adoo isticmaalaysaa arkaysaa kuwii hore ku yaalay laakiin marka hadda saan oo kaleta aad ku gadisay meelo waxaad arkaysaa inaad isticmaalaysid weliba waa wejigaagu yaalaa you know meel oo aad ka arki karti u yaalaa armaajada waxaan dhigayaa bookshelfkaan saaranayaa geedahan waxaan kasoo gatay dukaanka kitchen staff la dhahayo warehouse ay qabaan oo ku yaalo Brampton Steels iyo Horontario warehouse ku yaalo halkaaseeto but anyways sometimes self fiican ay qabaan dukaankooda caadiga ah waxaa lagu gadaa isaga naftirkiisa low price laga dhigaa sometimes okay so cranberry raisinki goldiga ahaa iyo kii Thompson ay dhahaan I don't know waxay kala duwan yihiin raisinka muxuu ka samaysan yahay mataqaaniin you don't want to know waxay dhahaan waxa waaye grapes oo la qalajiyo waaye you know grapes khamri in laga sameyn karo too subhanallah anyways waxyaalo badan la bedeli karaa wax walba laga sameyn karaa subhanallah ilaahay subhanahu wa ta'ala noo naxariisto intooyinka qaarkood cunno wiswisa gaagala markaan maqasho waxyaalo qaar waxa leeyahay maxaa tiri anyways waxaan sameynayaa mushaaridii aan idin sheegay dhahay overnight fridge-ka gasho oo suxuur ahaan cuni kartaa ama xataa wuxuu cuni kartaa afur ahaan inuu hadda jecesha mushaarida waay mushaarida raw ah ayaa waxaan ku shubayaa dhalada dhalooyinka waxa waay kuyaan kasoo gatay Dollarama okay aad iyo aad u waaweyn yihiin markaan suxuurta cunaynay aan baaquli ku gadiyo waan naxa intuu noqday laba qofood baa cuni kartaa waa ka dhageysaa laakiin haddii maaragtay qof gaajahaysa tahay haddii aad maaragtay jeceshahay مشاري aad yaad baad uga helaysaa dhalada aad u weyn tahay so aniga Mason jarkan sheegay waxa waaye the individual wax yar oo adiga maaragtay kugu filan dhalada waan buuxiyay ma buuxinin all the way because room u baahan tahay ku sheegareys maarkino markii hadhooti waxaan laga yaabaa inay barafto because mushaarida markay biyaha galaan caanaha markay galaan waxa laga yaabaa inuu hilo so markuu ayilo dhalada space u baahan tahay ku you know kukoro especially hadda ku dareysid flaxseed chia seed waxyaalo badan hadda ku dareysid waxa fiican in u banaysid inta kore so mushaaradii labada qaado waxa way 1/3 cup ayaa ku qoran geedkan isticmaalayo labadiisan ku shubay okay waxaan ku daray raisinki waxaan ku daray cranberry waxaan ku daray loos kasta yaalo waxaan ku daray chia seedki flaxseed oo laba nooc ahaan soo gaday baayaasha yarka inta tusinaay si fiican idima tusinaay because baatiyan qabay you know gacmahaygina waxay waa qawanayeen so baasha la gashanay ma aan qabin so waxaan dhiray you know what at least what arkosid videoga so maha da muhiimka waxa weeyaan in aragtaan waxaan sameynayo so waxaan ku shubanayaa lowski wixii oo dhan dan waxaan jarjaray moos iyo apple laba apple ah iyo moos because waxaan sameynaya laba dhalaan sameynaya okay labada dhalaan rabi inaan sameeyo so waxaan sameeyay laba apple iyo hal moos aan jarjaray waxaan sameeyay mataqaanaan suusan iiga madoobaanin inta maaragtay waxaan kala sameynayo waxaan ku shubay cusbo weligaa ma ku fikirtasaan markaan arko waxaan dhahay genius liimaan ku shubi jiray liimadan waa nacbaa because caanaha in ka kala goysaa laga yaabo moogta maadaama cusbana ay u baahan tahay in lagu daro mushaarida anyways waxaan samaystay markaan arkay geniuskaas waxaan iray baan waa ma soconayso laakiin markaan tijaabiyay I couldn't believe it mooskina ma guduudanin applekiina ma guduudanin so waxaa samaynaysaa markaa jarjaratida applekii aad baaquli ku shubtid cusbo adiga intaas leedahay hal qaadada oo shaaha qaadada weynta ah camal aan ku shubo salt ah waa ka dhaqaysaa intaas dhan ku shubanaysa moogta waa ka dhaqaysaa so suuga ujeeda cadaan ku yahay applekii soo soo bixi doon waa arki doontaa iyo mooski so waan qasay waan dhigtay inta waxay qabsanay ka bacdi waan ka dhaqay so markaan dhadhamiyay waan ka dhadhaminayaa cusbadii oo waxay u baahan mushaarida u baahan then markaan ku darayna de maba dareemaysiba you know caanihiiniga ma kala go'ayn lin dhananta I don't know before waxaan ku sameyn jiray apple markaan ku shubo liimada aan ka dhaqano waa dhaqmatay moogta laakiin hadda anoo cusbadii u baahan wuxuu kasii dhagay baaliisa maan ku dhahay so wixii dhan isku wada qasay waxaan ku darsaday yogurtka ilmaha cunaan oo yariiska ah labadii baa u kala qaybiyay vanilada midka aan xabadaan ku daray extra because beachka xabadaas kaliya taal hadii oo leed mid kale ma xabadaan ku dari lahaa adiga arkaysa inta size-ka oo ka banaanaan doonto adiga kolba ani waxaan ku tusinayaa video-gaaneeto aan kula wadaagayo waxa waaye suxuurtaada sii diyaarso you know suxuurta sii diyaarso fiidkii hore intaad seexanin ama you know qalbihii camal haddaa rabtid habeenkii isugu jirta ilaa iyo habeenkii oo dhan haddaa rabtid xataa afur ahaan waa loo cuni karaa soo subaxii markaad suxuuratid ka bacdi sii diyaarso oo filjeenka gasho
habeenk markii la gaaro iftaar time ka baaquli waan ku gadi waxa way it's ready mushaari baalisma ay ku soo baxday soo jeedin labadaas dhalaan sameeyay saas oo buuxiyay fruitka jecesha ku tasan kartaa cambe peaches whatever ima olin alaabta sita inaan ku daro way yala frozen mango but fresh mango aan ka jeclahay kaas cabitaan kale ku sameysana soo jeeda space kaas u baahan yahay saas ugu ruuxi kasid it's easier and then fridge kan geliyay so suxur marka soo kacnay waxaan geliyay waxaan ka furay furka dhaladeeda iyadoo ku jirto safe way microwave kan geliyay 2 daqiiqo markuu soo kulaado dangerous way iska ilaali waxa kuleel way moogta ina soo saaratid way baaquli marka ku gediyo adiga arki doontid uu noqdo anyways waxaan ka furay kaliya kabarka ku xirnaa microwave kan geliyay soo kulaaday waan ku celiyay and then aniga sokortaan ku daray malabkan ku daray balismi iyo head laakiin xajiga more malabu rabi so waan ugu daray and then that's it so hadda waxaan la wadaagayaa geedihii macmacaankan sameeyo peanut butter ku daray ayadoona peanut butter ku darin markaanayto oo loogu talagalay afurka in lagu cuno soo daawasho wacan waa soo noqonaa waxaan rabaa inaan sameeyo oatmealkii mushaaradii geedka laga sameynaya so mushaarada ma karsan oo ujeedaa mushaaradan waxa waa tii oo halka daqiiqo iyo xoogaaga karsameysay weeyaan saddex qaadadan yarkan ku shubay kan waxa waaye 1/3 measurementkiisa waa 1/3 okay meeshaas igu jira iloobay waxaan ku darayaa moos waxaan ku darayaa jam peanut butter kuma jirto okay and loosaska qaarkooda daarteen iska dhayso iska dayn kartaa and inta waxay ku jiro pistachio iyo looska caadiga ah inta igu jiro intana kuwa kale to kala nooc ah baayashooda aan ku dhigay flaxseed waxaan ka darsanayna iyo qumbooyinkiina waa kuwana and walmartiga mar labaad ka soo gadanay kan kakao waa almond walnut and this is another almond but waxa waaye mid oo si kale u jarjaro waaye so kulligood isku wada qasaya and maple syrup so just waxaan rabaa gab aan isku siinayaa insha Allah but marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan liquidka aan separate u qaso okay mooskan soo burburinaya jamkan ku soo qasaya ka bal qaado qiyaas way okay adiga waa testan hal ina test gareysid way inta kugu filan so aniga hadda saddex qaado saddexdii 1/3 ka ku shubay ya inta ii noqonayso ilaha og waan jeclaan lahaa inaan peanut butter ku daro but waxaan rabaa inaan aragtay idin tusiyo different style kii hore idin la wadaagay waxaan ku sameeyay unsweetened ka korka ka mariyay but unsweetened ka markaan ku shubayaa video kalaan ka hadlay waxa waaye asagoo peanut butter aan ku daray ayaan sameeyay videogaas marka videogan dhameysatay gadaal buu ka soo baxaya insha Allah click si daawo videogaas inta saad uga aragtid recipe-gaas kale tana insha Allah durubidmo fadlan haday wax subtaa subscribe ku noo taabo like noo saar noo si share garay insha Allah durubidmo waxaan rabaa inaan su'aal idin weydiiyana ma waxa jeceshiina codka ku dhaafo mise inaan cod kor saaro taasna iiga soo jawaab comment-ga idin ka arko insha Allah shaaridi waa tana waa soo noqonay okay bayaankii waa kana so waxaan ku darayaa cranberry kuma daray sabiib iyo waxaaseeto okay kuwana rabaa inaan soo jajabiyo and kuwana waa jajabiyin already and soft so the rest waa soo shubayna runta hadda idin sheego way adag tahay iyadoo video la duubayo in codkiina la saaro waliba kaliya markaa sameeyaysa hadduu qof kula sameeynaayo beel waa because adiga ku korsheekeynaysa qofkii uu sameeynaa moogta so waad isku dayaa bal idinkana comment-ga idinka arko bal fikradiina rabaa inaan maqle intaada qoyaanku ku darin maaragta daartina ka baysin taane to samee maraba inaan badiyo maanta waa hal moos ka bal qaado iyo qaadooyinkaas to so geedadan ku isticmaalayo marka ugu horeyso adiga marka wixii ku dhibay ka reeb okay ku wanaagsan ku dar waxaan ku darayaa moor qumbaha oo qaleelka ah kan kii macaanka ahaa waaye waxaan rabaa inaan ku duduubo xoogaa waa qoyan yahay
saan u fiicneen baa odaygii shaqada ka yimaado guriga soo gala soo sharqantii hadalkii waxay bateen soo videogan kuma dari karin marka waxaan jeclaaday inaan cod ka saaro intan ugu dambeyso marka adiga fikrado badan aan ku siinoyaa ka faa'iideyso insha allah soo haddaad igu cusub tahay waxaan ka codsanayaa subscribe-ka like aad u baqiil aw tihiin haddaad video fiirsataan like iska saar insha allah doorbidmo walaalay igu xiran aad mahadsan tihiin walaalay cusubna waxaan leeyahay welcome kusoo dhawaada channelka geedkan recipe-gan waxaan ku sameeyay peanut butter loos waxaas ku jiraan hadda haddaad rabtina ka saarto waa ka saari kartaa isagoo peanut butter loos wuxuuna ku jiro isagoo peanut butter ku jirin oo jam aan ku sameeyey waa kana insha allah idin wadaagaya wixii kale idin wadaagi karo oo aan isleeyahay waa ku anfici doonaa soo jazakallahu khayra daawanaysa waa inoo videoga dambe khayra idin rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh